السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودا ذا كبعية أكاديمي أو أدو برتين عشرة كلا دوان وكساب سندين عبسنس كي أكاونتي كوا ما أنت وحن كحد لنا شهادة لو يقانو وردي بدين سوي دين لو يقانو CBA وما حي شهادة CBA قابك لوغل امتحاناتك محي كوبان تهي لعاقها ودمان حكو سابسن وكون بليدة أيانو عشر كان كحد لنا أصحابي هموغاني مكا أصحابي waxaan kaga hadlanaa waa maxay shahaadada CBA oo objectives kan kaga hadlano casharkan waa maxay syllabuska imtixaanaadka loo galo wuxuu ka kooban yahay structure-ka imtixaanku leeyahay qaabku uu sameeyay yahay ma multiple question ba ama writing skills ba waxyaalo kala duwan structure-ku sameeyay yahay leveliska skill levelka ama qaybaha uu imtixaanadu ka kooban yahay sida ma analysis buu badan yahay ma written buu badan yahay ma understanding buu badan yahay wuxuu badan yahay remembering marka skillska looga baahan yahay qofka imtixaanadu qaabku kala saa macna uga kooban yahay ka hadlana qodobka afraad qodobka shan ka hadlana kosaska ma maxaa lacago la xiriira oo laga qaaday hada CBA baranaysid Allahumma salli ala Muhammad waxa ka hadlana eligibility and becoming CBA maxaa shuruudaha hadaan rabo in CBA noqdo maxaa shuruudaha laga baahan yahay iyo qaabka uu noqonayo CBA iyo CBA Somali context qodobkii horena qodobkan waxa ka hadlanaa CBA qaabkii Soomaalidu u baran kartaa CBA marka asxaabay ha ogaanina halkan waxa ka hadlanaa waa maxay shahaadada CBA wax loo soo gaabiyay certified public accountant waa certified waa wax micnaa la soo hubiyay ama la aqoonsan yahay oo dhinaca xisaabaadka ku saabsan sida public ah oo shirkadaha marka la kala qaybinayo ayaa la public sector iyo private sector marka dhinaca public xog saarayaan was a title of qualified accountant waa title siiyo qofka qualified ka in numerous category in English speaking world marka waa wadamada ku hadla Ingiriisi ayaa shahaado loo yaqaan CBA la siiyaa marka dadku waxay haystaan CBA-du inay Mareykan kaliya tahay run ahaantii horta Mareykanku aad buu xoogan yahay CBA because of wadamada marka laga hadlayo taariikh ahaan ay xaqooda ayaa marka hore ka soo bilaabmay laakiin wadamo kala duwan oo aad u fara badan oo Ingiriisi ku hadla oo ayaa jira oo CBA ku hadla ayaa qaata marka wadamadaas waxa kamid ah UK oo waxay sameeyeen waxna yahay UK and United States of America waxay sameeyaan dhammaan stateska marka hadda Mareykanku wuxuu ka kooban states kala duwan marka waxa dhahay ilaa cotton state ayaa bixisa CBA oo Mareykanka marka state kasta Ohio State Columbus waxay states kan kala duwan waxay sameeyaan state walba CBA gaar uu leeyahay marka waxa jira waxyaalo CBA-du generally tahay waxna wax state walba gaar waa marka shuruucaha loowiska oo kale state walba loo gaar uu leeyahay laakiin in context in generally CBA-du wax isku mid ah oo wax sibis loo baranayo laakiin waxyaalo yar yar qodobo yar yar ayaa difference u ka imanaya wadamada kale ee CBA-da wax loo yaqaan Kenya waxa kamid ah Kenya waxay arkaysaa CBA Kenya qofka siistaa hada Kenya ka wada ka yimaada wixii istaabadana CBA-da Kenya waxa jira CBA-da Malaysia ayaa jirta waxa jira CBA-da Australia CBA-da Canada marka CBA-du aad buu fara badan yihiin marka xitaa marka laga hadlayo the state-ka ku xiran tahay CBA-da Ohio University oo kale ama state kamid ah marka states-ka kala duwan yihiin laakiin guud ahaan CBA-du waa shahaadada la ictiraafsan yahay lagu talagalay dadka xisaabiyaasha inay sitaan kan kambaniyada waaweyn marka la audit gareynayo waxa lagu xiraa in ay CBA sitaan qofku audit gareynayo inuu CBA certificate uu sitaan marka benefit far badan bay leedahay CBA-du qof ma kusto marka inta qodob waxa ka hadlaa in CBA-du la fahmo waa maxay CBA marka haw qaadanina misunderstanding baa jira in CBA-du la dhaho Mareykan maale CBA-du waa part Mareykanku waa dadka advocate gareey ugu waaweyn laakiin waxa jira CBA-da America waxa jira Kenya Malaysia Australia iyo wadamada Canada wadamada Ingiriiska ku hadlo badanaaba CBA iyo gaar buu leeyahay marka inta hadan kaga nimaano hordhaca CBA waxa noogu xigaya syllabuska marka CBA laga hadlayo guud ahaan waa 4 syllab wuxuu leeyahay 4 level buu leeyahay marka 4 level mid kasta waa 4 imtixaan marka level walba
oo aan arkana qaabka loo barto marka examku waxa lagu siinayaa level kasta afar saacadood baa lagu siinayaa marka levelka u horeeya waxa loo yaqaanaa audit and attestation marka waxa lagu barayaa waa maxay auditku marka waxyaalaha xoog auditku saarayo waa maxay forming and calculation and reporting inuu sameeyo reportingkii calculationkii about the company marka qodobada ugu waaweyn hadda qodobadan tiriyano waa qodobada uu imtixaanku xooga saaray afarta qodob uu xooga saaray marka auditka laga hadlayo wuxuu saaraya in reporting la siiyo in risk assessment la sameeyo iyo la sameeyo balaniski laga hortagay qodobka saddexaad noqonaya in la sameeyo procedureski lagu heliyay evidence-ga marka ugu dambeeyana waa maxay responsibility-ga as a professional and ethics-ka iyo general principles marka afarta area iyo xooga saaraya waxaan leeyahay paperka koowaad ama sectionka koowaad marka sections buu yaqaanaa syllabus waxaan leeyahay CBA-du sectionka koowaad wuxuu sameeyaa audit waa maxay auditku reportingkiisi riskigiisi procedurekiisi evidence-giisi wixii audit ku saabsanaa oo dhan buu sections kaga hadlaya sectionkan ka labaad wuxuu ka hadlaya businesska iyo environmentka marka concept badan oo businesska ku saabsan ayuu ka hadlaya waa maxay corporate governance waa maxay oo ama shirkaduhu wax isku xukumaan corporate governance baa lahaa financial management waa maxay operation management information technology marka waa sectorska uu sectionkaasi xooga saaray sectionkeenan afaraad saddexaad baan leeyahay wuxuu saaraya accountingkii siba financialki si loo record garina transactionska si local and state government-ga loo kala xisaabilayo maadaama xisaabidku kala duwan yihiin local government-ga iyo state government-ga iyo si standardska aad qofku u fahmi lahaa iyo framework-yada uu isticmaalayo iyo reporting-kooda sectionkaasi intaas wuxuu ka saaraya financial accounting and reporting xoog intaas saaraya afarta section sectionkeena u dambeeya qofku markuu ku dhamaystirto uu xooga saarayo waa dhinaca lowiska iyo taxation marka lowga wax soo galiya dhammaan business logii federal taxation kii individual entity federal taxation individual federal taxation marka oo kale qofkana shirkadana cashuur baa laga qaadaa qofkana cashuur baa laga qaadaa property-gu uu leeyahay cashuurta baa laga qaadaa iyo ethics-ka looga baahan yahay iyo responsibility-ga uu leeyahay marka sectorka u dambeeya badana waa lowis haddii noqoto taxation iyo haddii noqoto lowga caadiga marka iyo ethics-ka waxa soo dhan buu xooga saaraya marka afartaas section kala duwan soo aragnay imika Allahumma salli ala Muhammad afartaas section auditka u horeeya auditku waxa ku xiga businesska business environment concepts oo business ku saabsan sectionkaasi sectionkan wuxuu ka saabsan yahay financial accounting sectionka u dambeeyay wuxuu saabsan yahay dhinaca lowiska marka afartaas section buu imtixaan geliyaa midkiina wax loo geliyaa 4 saacadood marka afartaan ku dhameeyo waxyaalo kale looga baahan yahay oo soo qofku uu noqdo CBA member halkan wax ka hadlana structure-ka ama qaabka imtixaanku soo eegaanaya marka imtixaanka wanigi inay 4 section baa imtixaanka kooban yahay imtixaanka hadaan dhahno imtixaanka financial accounting and reporting aanu ka dhigno maxay qofku marka si dooni u horeysiin karaa wuxuu dhigi karaa halkaas ka bilaabanaya u fudud buu ka bilaabanaya marka financial accounting and reporting xoog wuxuu saaraya imtixaanku 4 saacadood content percentage waa multiple question waa goobo geli kontonka kalena simulation baa loo yaqaanaa ama wax loo yaqaanaa scenario baa lagu hordhigayaa wax la yahay analysis garay scenario-da ama response ka bixi ama evaluation ku samee marka kontonka marka qofka wax lagu baahan yahay 75 inuu ka sareeyo percentage marka qofka oo kale hadii 100 lagu saxay imtixaanka uu keenaa 75 wax ka sareeya marka qofkaas uu imtixaanka u baasay haddii laakiin 75 wax ka hooseeya uu dhacay marka loo barbardhigo ACCA-da yada ayaa ka adag xagga imtixaanaadka oo macnaheedu percentage lagu baasay ACCA-da oo kale lagu baasaa konton baa lagu baasa halkan 75 lagu baaso auditka oo kale content percentage audit and attestation wax lagu konton 4 saacadood baa lagu ogol yahay waa multiple question konton kamida konton kalena waa simulation ama wax loo yaqaan scenario analysis kan kalena waa la mid regulation kuna waa la mid waa 4 saacadood waana content percentage oo multiple question iyo simulation content percentage hadaba business environment and concept ayaa ka duwan isagu wuxuu leeyahay content ayaa multiple question shay 30 waa simulation waa scenarios shay 10 waa written because
wax rabaa reporting the business inaad written skillskaagu aad u xoogan yahay marka because you have a managing company big company but manage karka marka wana skillka writingka oo very aad ku tahay competitive marka intaas ayaa structure marka laga hadlayo hada leveliska qofka loogu tala galay inuu skillska mid walba wuxuu uu xooga saaraya hadda kale kan u horeeya AUD wax loo soo gaabiyay waa auditku 25 ilaa 30% wuxuu xooga saaraya remembering inaad shayga xasuusan kartid ama understanding waxa lagu talagalay intaas qayb maskaxda kamid ah rememberingkaaga la tijaabinaya iyo fahankaaga inta u dhaxaysa 30 ilaa 40 waxa la tijaabinaya application inaad wixii apply gareyn kartid oo application inaad waxaad soo baratay ku apply gareyn kartaa scenario-da 20 ilaa 30 waxa lagu tijaabinayaa analysis-kaaga lafagurudaadu si u shaqeynayso kan dambeeyay evaluation 5 ilaa 10% ayaa evaluation because wax la qiimeynayaa judgment-iga ama decision-ka gaaraysid inta scenario lagu hoos dhigo wax la yaa judgment ka gaar scenario-dani saas u dhacaysa saas maxay ka tahay marka judgment-igaaga ayaa skill-ka maskaxda ayaa la taskareynaya marka ereyooyinka la taskareynaya kan kale waa business environment and concept waxa la taskareynaya 10 ilaa 20 waa remember and understand content ilaa 60 waa application 20 ilaa 30 waa analysis ka kalena waa lamid financial reporting ka kalena waa regulation marka mid walba ereyooyinkaas xooga saaraya marka waxa muhiim ah mar walba written-ku waa very necessary in ACBA in qofku written skills-kiisa ama written communication-kiisu oo aad u iyagu waxay sameynayaan aad bay u qiimeynayaan because of hadda waxa dhici karta inaad business xoog aad u weyn aad ka noqotid manager ama chief manager marka written-kaagu aad u wanaagsan yahay marka ereyooyinka xoog saarayo imtixaanaadku waa ereyooyinkaas qodobkan ugu xiga lacagaha waa maxay qodobka lacaguhu waa qodob sensitive marka waxa jira ilaa 6 lacagood oo kala duwan qofku CPA noqonayo oo bixinayo lixda waxa kamid ah waxa ugu horeeya application fee marka iminka aad dhahaysid CPA aad u gudbinaysid waxa jira application letter aad qoranaysid dhahaysid waxa u baahan inaad noqdo CPA inaan kamid noqon doonaya marka ilaa ka $200 inta u dhaxaysa ayaa laga qaadaya marka waxay ku xiran tahay state-ka ama wadanka waxa laga yaabaa wadan in $100 laga qaado mar 150 adu maximum $200 ba laga qaaday marka waa application fee in CPA register noqotid marka waxa jira wax qodobka labaad examination fee waxa jira in imtixaan walba section walba imtixaan laga qaaday wuxuu u dhaxaysaa ilaa 193 bounty adu lacag $200 ayaa section walba imtixaanka ku gali kartaa waxa kale jira registration fee baa jira marka kan waa fee-kii imtixaanaadka ka qodobka labaad qodobkan kalena section walba diiwaangelin gaar ah uu sameeyay haddii section-ka koowaad diiwaangelinayo waxa laga qaadayaa 63 section-ka labaad 180 section-ka saddexaad 390 iyo section-ka afraadna 177 marka waxa jira marmar dadku lacagta gabigooda bas registration ahaan afarta section bas diiwaangelinaya markaas kale discount loo sameeyo qofka haddii laakiin uu dhaho section ma isku diiwaangelinaya marka lacag laga qaado marka dadku waxay isweydiiyaan application fee-gan oo horeeya registration waxay kula duwan application-ku waxa loo aqbalayaa inaad qofka adigu inaad ka mid noqon kartid CPA marka hore application-kaas fee baa jira marka aad CPA noqotid in imtixaankii geeshidna lacag baa laga qaaday inaad section kasta oo geeshid lacag baa laga qaaday kula duwan yihiin waxa jira lacagaha kale waxa jira ethics fee oo qofka lacago ay charge gareeyaan oo dhinaca license-ga iyo waxaas la taxalluqa adoo 150 ilaa 200 intaas oo fee ayuu u dhaxeeyaa waxa kale Allahumma salli ala Muhammad waxa jira CPA marka inka CPA la dhameeysid waxa laga rabaa sanad walba lacag baa laga rabaa oo annual ah oo $100 ilaa $500 u dhaxeeya oo CPA aad ka mid noqon marka shahaado kasta oo professional badanaa waxay u baahan yihiin license-ga markay ku siiyaan sanad walba lacag ku shubta hadii kale license-ga kala noqonaya qodobka ugu dambeeya waxa jira continuing professional education inaad waxbarashadan inaad sii wadatid CPA-dii cilmo la taxalluqa markaana waxa lagu siinayaa waad bixisaa fee
waxa laga yaabaa inay casharo ama shahaadooyin yar oo ka duwan CBA da la xiriira inay ku sii tababaraan lacag baad bixinaysaa markaana inaad aqoonta CBA sii wadatid haddaba qodobka waxaa ka hadlaya eligibility and becoming CBA yaa noqon kara CBA inaad noqotid waana marka hore haysataa degree business ama accounting degree business oo shahaado la ictiraafsan yahay siiba jaamacad aad loo ictiraafsan yahay marka waana haysataa marka shahaado la ictiraafsan yahay waxa jira waxa dhahaan 3E oo qofku meet karaya ama uu saddex option bar waxa laga rabaa saddex qodob oo saddexdu E bay ka bilaabaan 3E baa loo yaqaan education waa inuu qofku sitaa bachelor degree accounting ama business oo uu soo dhigtay 150 credit hours guud ahaan uu soo dhigtay 150 credit hour kalabaadna waa inuu imtixaankii afartii baarti ama afartii section uu dhameeyay oo uu ka wada baxay ka saddexaadna waa inuu leeyahay 1 sano ilaa 2 sano experience oo accounting ku soo shaqeeyay marka intaas ay ka rabaan waa 3E bay ka rabaan marka waxa muhiimsan inuu qofku hadduu accounting dhameeyo business inuu shahaadada diyaariyo si hadduu ka dhameeyay manaas la ictiraafsan yahay jaamacad la ictiraafsan yahay marka jaamacada Soomaalidu mostly marka laga hadlo wali deebaan arkin qof Soomaali oo CBA ku diyaariyay marka mostly lama aqbalsana CBA da maadaama jaamacadaha tayadii minimal level keen gaarsiisan marka waxay ku soo kordhiyaan ethically waynu sitaan 3E ga waxa dhahan qofku in akhlaaqiyadkiisu aad u dhisan criminal iyo waxyaalo fara badan oo dambiya ayaanu gelin marka waxay dhahan qof saafi doonayagu marka in ethically-na uu qofku waxa laga yaabaa in ka codsan criminal hore meed gashay marka qofkaas horta intaas wado soo mara uu shahaado hadii marka ka soo qaad shahaado business ama accounting sinay waxa la dhahayaa waxyaalo badan bay restrictions fara badan bay ku saarayaan inaad soo dhigataa koorsooyin accounting waa inaad ku soo shaqeysaa hadana accounting waxyaalo badan bay ku soo saarayaan hadda accounting sida ka Soomaaliyeed oo kale badan uma aqbalaan shahaadooyinka marka qodobkan u dambeeyay waxa ka hadlaynaa Somali context CBA marka waxa ugu muhiimsan very necessary hadda badan Soomaalidu wax ka soo dhameeysa Kenya wadanka Kenya ugu dhow CBA da Kenya because waxa laga yaabaa jaacad qof Kenya inuu ka dhameeyay markiiba iyagu aqbalaan marka afarta section buu galaya saas uu ku dhameynaya marka laakiin ma jirto macna in Soomaalidu macna in wadankeena inta laga dhigto CBA oo la dhigto sector exam la galo saamaan arkin marka wadanka intaas wax ku saabsan shahaadada CBA da hama ogaanina inaad mar walba la socotaan Kobciya Academy waxaan rajeynayaa casharkan in badan wax faa'iido taray insha Allah like share subscribe wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh